been ma ku sheegay sharciga yaraan oo ilaasinay oo isdhahay bal meeshaan ay tumaartay meelahaas ay ku duldul waa la saga daba imaaday bahalkan ay baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid elsan u codeeya xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan u codeeya laakiin waxa halkan u soo galay in ay muhiim tahay in as aragno tomorrow waqti badan soo keen dambeysay aniga Facebook soo gali jirin ayaantaan waa iska nastay alxamdulillah because of jijiidki iyo wixii waa iska fahmi kartaa ya xabado badan way ku dhacayeen meeshii ma laga sii hadlaayo marka walaalayaal oo imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aan nahay dad muslim ahaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna believe me ban idima sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha wadankan Soomaaliya gabdhahan lagu wareejiyo 4 sano kaliya aan ku fiirino 4 years just 4 years arka wallahi billahi jijiid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooda yaqaanaan karti bay leeyihiin waxbay qabsadaan horay u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino 30 xoogaa sano waxa waa geyn weynay dadka waa isku keeni weynay ummadda waa isku keeni weynay marka bal 4 sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maartay guulna gaarsiin doonaan marka waxa idin rajaynayaa inaan is aragno habeen dambe xogaa waxaan la soo xiriirayaa insha Allah ta'ala wiil yar anoo ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa fahanteen Soomahan hadee wixii media waa joogaan marka meeshaas in idinka arko aniga aad iyo aad igu weyn hadda is leedahay shalay ilahana ka soo horjeeday iska ilow waxa soo dhamaadeen hore loo soconaya qofta waa tagtay ma fahmino tareenkan cusub soo raac waa soo raacin anaga gacmaha ay seysano hadee khayr idin rajaynayaa I love you guys all and intaan ka badan waxa waay dambiya u maleynayaa hadalka badan waa laga fiican yahay guul khayr insha Allah ta'ala share ku sii qabta ma la jiray hal imaada meesha dadka xamar joogo dadka boosaaso joogo dadka Ismaaciil joogo dadka joogo Cadaado dadka joogo Bokool iyo Djibouti iyo maxaa ahay meesha aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladeedii Lascaanood life soo gala daawada waxaan rajaynayaa anagoo happy ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yar yar iyo wiilasheenaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan Roomaro aniga Axmed ahaan wallahi been ku sheegay si u shaqeysaan arkay say hore ugu socotaan arkay aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay Roomaro marka intaas kaliya awgeed imaada hadduu Ilaahay yiraahdo markay xagga tagtana haddii la sicin lahayd xataa hore oo sii wadanayna ma fahmino wadanka tagayda dawladdeena isku dhiibayna xaggan ka sii wadayna hawsha haddii Ilaahay yiraahdo dawladdeena hala taageero intaas yarta dawladnimada waa fiican tahay ayadana waxaan rajaynayaa inay ka shaqeyso dadka si soo dhaweyn lahayd oo ma aragtay ay يعني ما فينا إن سكو مارت ما حرص قراعه. At the end of the day وحاجة domestic محل ده هاي policies and international. إنه كلا في strategy جوده إنه سكو رجسوا ضد بعض وهرم جارسينا يو. ماشي أنا تو حواي ضد كواد دالين. بين مكوش ياش واد دالين. حتى رجي أو سياسيين تكجري. أجي أبدالي. والله ويد دالين نفتر كود سلو عرسناي. أيجان عرسناي ما أنطقن. مركو حرجينا أنا أسكو أمانو. oo aan hor u socono dawladana hala taageero maamul goboleedyada kuwa dhisan hala taageero kuwa wax ka dhiman yihiin hala sii dhameystiro insha Allah ta'ala ilaahay maartay dad daacada oo urkooda isku fiyo ilaahay naga dhigo oo isjecel isku jecelnahay waa ogtihiin it's no doubt about that waa isjecelnahay laakiin xogaa yar oo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelkii ay wali dhiman ma gaarin you know dadka waxay ku qaadataa 200 sano inay dhisaan system jiro ما فهمنا وليبا فدراليزم أو هذا إلهي أوجي حال كيسة مركز تاسم كسي ديران عيو وحين الله يكليه أنت يرتاح هاي سنة على سير ريحه خير أسكو ابن هاي بريتو إيش ضد اللايف كوجرا كسوعة والله سما لبكلي هو كل لايف يقولوا جرا يسوعة ما قتل تلفونه هيستان anyways بريتو أسرقنا نوع ماذا أصلا باشالنا الدولار هذا فلانين توعي دي جياش واعي برامبرودي ديار واي درع صوحرت قنتين هذا ماشي عن قصنا tomorrow في عن قصتان فوناكسن لكن يا خير أدير جينا يا I love you guys إلهي خير إنسي نوصل دعية سياسة وحسها سهلا ما أهن يعني أنت كجرتنا ودعية أو مسلمين تأه أو معرتي أو وطن كان كجرتو هذا إيو محمود نور إيو سياد علي إيو دولاي كورو يا عبدي ورسمي إيو عبد AK إيو ودعية باشا وحسهلا ما أهن أنت أصلا صعتنا
ina karti leedahay ogow baashaan igu soo degdeg ma ahan marka insha Allah britaas arkayna haddii ilaahay yiraahdo haddaan noolahay waa intaas soo duceeya khayr ay rajeenaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت ولد عيسنا يا dadka markay soo galaan Facebook live marwaa noogu dambeysay meeshii taabanay xataa inaan taabtay ma aqaan adig inaan ku jira umaleynaya insha Allah taala sugiya wax yar aan kala habeey isuga wax yar اوكي هدا soo galay baalka okay السلام عليكم soo dhawaada maanta waxa waaye waa la duceynayaa ما شاء الله والله مرة igu dambeysay live aan soo galo maanta waxyaabo badan idin sheegaynaa ku saabsan campaign-ka say wax u socdaan insha Allah taala meesha wax marayaan mar dhawaa bilaabanayna programka ee dhahan dadka live soo galo moogta heesa intii la shido heesa ima haysti ani waxa shida ma haysti but anyway السلام عليكم ورا أمر إنا شقيسه محاك وداعي لا إله إلا الله أنا وصور دونت anyways سود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله هنا جامعير سود هو كان صان له اسك قريبا أوكي سود هذا وعليكم السلام كل جين أحمد حرسي ومرة يمكن دنبيسي فيسبوك عيانا كم مقنع waxaan uga maqnaana waxay iska ahayd maartay dana gaar ah oo aniga family ahaan waxaan rabay inaan ka tago bahalka siyaasadina waa xogaa lagu wareeritay Soomaaliya marka inaan break ka qaato alxamdulillah dhamaantiin waa salaamantihiin mar kale assalaamu calaykum inta gadaal naga soo gaartay soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego election kan hadda ilhaan ay ku jirto waa la socotaan saa umaleynaa kulligeen muxuu taagan yahay iyo muxuu nagu soo kordhinayaa iyo hadduu ilaahay ku roon yahay sababaha ama ku qasbay gabadhaasayto inay u cararto oo magaca Soomaaliyeed meel kore ay geyso wax sahlan ma ahan insha Allah taala saa ogtihiin بريتو وثلاثة أقدم بيسو إلكشن كدولاي رهدو وحرجينا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا أنت نقع عضيسي أنت نوع عضيسي أنت أنا نوع عضين كل جين إنك سوق بقشان تومورو بريتو أو ثلاثة أدرس كإلهام في الكونغرس هوس وكقرنية هاي ماشي مارتي إلكشن كل جودة ونايو إنا إماتان صابتو سياسة دول كسوه جيسان كرا معنا ملاهن لكن وحا مهم إن تاريخ دان قف كستا أو صومالي أنا صومالي أهان إلهان ضد بدني متشاء وارون مسلم يقال يكل وين متشاء وارون لكن أنا قدرنا هاي صومالي أهان أد أينو سامينيسا أو بحوي أن ميدا أباهنا هاي مركب قف كستا أو صومالي أو أودو إنه نجلس وقيب كلا حفلة داس صدقوا هاي سدهن حتى أنا جمع عضين وكسوهر جيري مسكيلو صدقوا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا إني جوشان نقطة مد ومد مديسو هداد كتمد صومالي لان هداد كتمد جيبوتي هداد كتمد كينيا هداد كتمد كلينكشن هداد كتمد صومالي وين بونتلان هيرشابيل جوبلان انتين كتقويا قلمودك وقاعد انت عند رجل ما فعلا لكن هل إماض يعني مركب كل جينا إماتان وإن شاء الله تعالى سببته وحواي imagine gabadha markay tomorrow haduu ilaahay nafta u qoro oo ilaahay u sahlo markay tagto meeshaas ayadoo xijaabkeeda wadato oo ninkii caanka ahaa ay hor fariisato oo meel kasta laga arko qofka ajnabiga ah kuma dhahayo gabadhaanaytu waxa waaye reer qabiilkaas waaye ama gobolkaas ka soo jeeda kuma dhahayo wuxuu ku leeyahay gabar Soomaali ah aqalka cad ku jirto ama ninka hor fariisatay oo muslim ah ma fahanto Soomahan taas awgeed guushan qof kasta oo Soomaaliya iskale meel kasta tagano ma iyo maxaa tiri Soomaali Bantu Soomaali Banadiri Soomaali weyn war meel magac waxa soo dhan ama calanka buluuga wado ama midka guduudka wado ama midka wax kasta ku qoran yihiin wado idaasir maareer guushan ummadna iskale insha Allah taala waxaan rajaynayaa ان tan inay noqoto mid ummadda dhan midayso inay noqoto mid sukaaya keento soo dhaweyso sababtoo ah layli waxa iska jiro siyaasaddan ku sii fogaanay
عدنا هي سومالي سياسة laba guriyo waxaa arkaysaa hal guriyo waxaa arkaysaa wadankan ninkina uu yahay republican xaaskina ay tahay dimuqraadi inay saasoo kale inaan gaarno waa rajaynaynaa insha allahu tacaala sababtoo ah ma ahan siyaasadda in lagu kala fogaado waa la kala aragti duwanaan karaa waa la kala fakar duwanaan karaa marka waxaan waxba ahayn inaan maaragtay dagaal isugu qaado oo wadamo loo burburiyo ama gobollo loo burburiyo ama madaxweyne loo caayo ama mas'uuliyiin kale oo gobollada matasha loo caayo waa laga fiican yahay sababtoo ah taas annaga dhan ayay saameynaysaa ilmaheena ay saameynaysaa insha allahu tacaala marka waxaan idinka codsanayaa maamulada jiro iyo maamulka weyn inaan taageerno ummaddeena isku keenno aan annaga dhan hal meel kasoo wada jeesano run ahaantii marka campaign ku jirtid aad ogaanaysaa Soomaalimada waxa ay tahay iyo Republicaanka dadka wadankan aan joogno dhibaatooyinka ay nagu hayaan markaas aad dareemaysaa waxa aad tahay markaas aad dareemaysaa in Soomaalinimadu ay tahay wax weyn markaas aad dareemaysaa ninka ka yimid waqooyi iyo kan koonfur ka yimid inay isku mid yihiin ma garateen marka guushan idinka iska leh alxamdulillah usoo duceey ilaahan ducadiina loo baahan yahay codkiina loo baahan yahay dhameystirkiina loo baahan yahay noo imaada nagala qayb gala inta imaan karto waa yani aniga personally wallahi meesha dhaxday Soomaali soo buuxiso okay aan ku ahay alxamdulillah waa fahanteen Soomaha marka ila gabarka ilaahan la soo hor u sheegay qof kasta matasha oo degan dad inta soo boqolaal kun 700 oo kun gaaraya matasha laakiin at the end of the day at the end of the day waa gabar muslimada waa gabar Soomaali ah waa gabar minority wadankan ku ah idinka idin matasha aniga idinka idin la hadlaaya ina imaataan soo duceysaan codkiina bixisaan haduu Ilaahay yiraahdo ka soo qayb gashaan waa muhiim waxaan rajaynayaa markana ku soo celcelinayaa in doorashadan ama electionkan Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid ummadda dhan wada tuso waa ku kala duwanaan karnaa wax kasta laakiin waxaan midayn karo markasta inay tan noqoto because maanta ilaahan qof kasta uu codeeyo lama dhihi karo reer hebel ka soo jeeda lama dhihi karo gobol hebel ka timid cid dhihi karta ma lahan magaca Soomaaliya oo dhan Soomaalida Kenya degto Soomaalida Ethiopia degto Soomaalida degto waxa Djibouti Soomaalida degto gobolada waqooyi meel kasta waa faan Soomahan ilaa ay hoos Jubbooyinka u dhaadhac bay iyo Bokol dadahan shalay qaaday waliba arraadi ma faantay marka waxa idin rajaynayaa walaalayaal ina imaataan ka soo qayb gashaan xafladan wax yaraan oo dhiman ducada soo dira election kan waa very important been ma ku sheegay sharciga yaraan oo ilaasinay oo isdhahay bal meeshaan ay timaartay meelahaas ay ku duldul waa la saga daba imaaday bahalkan ay baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid elsan u codeeya xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan u codeeya laakiin waxa halkan u soo galay in ay muhiim tahay in aan aragno tomorrow waqti badan soo keen dambeysay aniga Facebook soo gari jirin ayaantaan waa iska nastay alxamdulillah because of jijiidki iyo wixii waa iska fahmi kartaa ya xabado badan way ku dhacayeen meeshii arag ma laga sii hadlaayo marka walaalayaal imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aan nahay dad muslim ahaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna believe me ban idin sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha wadankan Soomaaliya gabdhahan lagu wareejiyo 4 sano kaliya aan ku fiirino 4 years just 4 years arka wallahi billahi jijiid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooda yaqaanaan kartibay leeyihiin waxbay qabsadaan horey u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino 30 xoogaa sano waxa waa geen weynay dadka isku keeni weynay ummaddu waa isku keeni weynay marka bal 4 sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maartay guulna gaarsiin doonaan marka waxa idin rajaynayaa inaan is aragno habeen dambe xogaa waxaan la soo xiriirayaa insha Allah ta'ala wiil yar anoo ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa fahanteen Soomahan hadee wixii media waa joogaan marka meeshaas in idinka arko aniga aad iyo aad igu weyn hadda is leedahay shalay ilahana ka soo horjeeday iska ilow waxaas waa dhamaadeen hore loo soconaaya qofta waa tagtay ma fahmino tareenka cusub soo raac waa soo raacin anaga gacmaha ay saysano hadee khayr idin rajaynayaa I love you guys all and intaan ka badan waxa waay dambi oo umreenaya hadalka badan waa laga fiican yahay guul khayr insha Allah ta'ala share ku sii qabto ma la dhigi jiray hal imaado meesha
dadka xamar joogo, dadka boosaaso joogo, dadka Kismaayo joogo, dadka joogo Cadaado, dadka joogo Bokool iyo Djibouti iyo maxaa la ahay meeshii aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladayda Lascaanood life soo gala daawada waxaan rajaynayaa anagoo happy ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yar yar iyo wiilasheenaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan Romaaro aniga Axmed ahaan wallahi been ma ku sheegay si u shaqeysaan arkay say hore ugu socotaan arkay aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay Romaaro marka intaas kaliya awgeed imaada hadduu ilaahay yiraahdo markay xagga tagtana haddii la isceelinayo ayda xataa hore u sii wadanayna ma fahmino wadanka tagayda dawladdeena isku dhiibayna xaggan ka sii wadeena hawsha haddii ilaahay yiraahdo dawladdeena hala taageero intaas yarta dawladnimada waa fiican tahay ayadana waxaan rajaynayaa inay ka shaqeyso dadka si isugu soo dhaweyn lahayd oo ma aragtay ay يعني ما فينا إن سكو مارتي ما حرص قراعه. The end of the day وحاجة domestic محل ده هاي policies and international. إنه كلا في strategy جوده إنه سكو رجس ضد دعاد وهرم جارسينا يو ماشان يتو حواي ضد كواد دالين بين كل شيء ياش واد دالين حتى رجي أو سياسيين تكجري أجي أبدالي والله ويدالي نفتر كود سلو عرسنا أيجان عرسنا يرمان طولن مركو حرجينا أنا أسكو أمانو oo aan hor u soconno dawladana hala taageero maamul goboleedyada kuwa dhisanna hala taageero kuwa wax ka dhiman yihiin hala sii dhameystiro insha Allah ta'ala ilaahay maaragtay dad daacada oo urkooda isku fiyo ilaahay naga dhigo oo is jecel isku jecelnahay waa ogtihiin it's no doubt about that waa is jecelnahay laakiin xogaa yar oo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelka yaa wali dhiman ma gaarin you know dadka waxay ku qaadataa 200 sano inay dhisaan system jiro ما فهمنا وليبا فدراليزم أو هذا إلهي أوجي حال كيسة مركز تاسمك سيد إيران عيو وحين الله كليه أنت يرتاح هاي سنة على سير ريحو خير أسكوب نهاي بريتو إيش ضد اللايف كوجرا كوسواعي والله سما دب كليه كل لايف يقولوا جرا يسواعي ما قلت تلفونه هيستان anyways بريتو أسرقنا نوع ماذا أصلا باشالنا الدولار هذا فلانين تواعي دي جياش واعي برامبرود ديار واي درع صوحرت قنتي ندى ماشي عن قصنا tomorrow في عن قصتان فونكسن لكن يا خير أدير جينا يا I love you guys إلى خير إنسي نوصل دعية سياسة واحدة سهلة ما أهن يعني أنت كجرتنا ودعية أو مسلمين تأه أو معرتي أو وطن كان كجرتو هذا إيو محمود نور إيو سياد علي إيو دولاي كورو يا عبدي ورسمي إيو عبد AK إيو ودعية باشا وحسهلا ما أهن أنت أصلا صعتنا إنا كرتلها أوجو بعشان يقولوا دق معهن مركا إن شاء الله بريتا صار كأنها الدولاي رهدو هدان الله هو إنتاس صود دعية خير أي رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الدعية سنة يا تذكر كيسو قلان فيسبوك لايف مرة أنا قدام بيس ماشي تابعنا حتى أنا تابت ما أقان أتك أنا كجرا أمرنا يا إن شاء الله تعالى سوقيا وحير أنا كلا هواي يسوق وحير أوكي هذا سوق على بالك أوكي السلام عليكم صود وهذا ما أنت وحواي ولا دعينا يا ما شاء الله والله مرة يقدم بيس اللايف أسوق له ما أنتوا حياة بدنا إيش شيء جينا كوسابسن كان بينك سيروح الصعدان إن شاء الله تعالى ماشي وحمرايان مرة بلاونا برنامج كده هنطلع لايف أسوق له مقطع هسه أنتي للشيء هسه ما هيستي أنا واحد شيء ما هيستي anyway السلام عليكم ورا أمر إنا شقيسه محاك وداع لا إله إلا الله أنا وصور دون anyways سود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاونا هنا جامع عير سود وو كان صان ده اسك قريبا اوكي سود هذا وعليكم السلام كل جين احمد حرسي ومره يمكن دنبيسي فيسبوك ayaana ka maqnaa waxaan uga maqnaana waxay iska ahayd maartay dana gaar ah oo aniga family ahaan waxaan rabay inaan ka tago bahalka siyaasadina waa xogaa lagu wareeritay Soomaaliya marka inaan break ka qaato alxamdulillah dhamaantiin waa salaamantihiin mar kale assalaamu calaykum inta gadaal naga soo gaartay soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego election kan hadda ilhaan ay ku jirto waa la socotaan saa umaleynaya kulligeen muxuu taagan yahay
iyo muxuu nagu soo kordhinayaa iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay sababaha ama ku qasbay gabadhaasayto inay u cararto oo magaca Soomaaliyeed meel kore ay geyso wax sahlan ma ahan insha Allah ta'ala saa ogtihiin بريتو وثلاثة قدام بيسو election كدولاي راهدو وحرجينا يا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا أنت نقع عضيسي أنت نوع عضيسي أنت أنا نوع عضين كل جين إنك سوق بقشان tomorrow بريتو أو ثلاثة أدرس كإلهام في كونغرس هوس وكخورية هاي ماشي مارتي election كل قدام ونايو إنا إماتان صعبتو سياسة دولة كسوه جيسن كرا معنا ملاهن لكن waxaa muhiim ah in taariikhdan qof kasta oo Soomaali ah anaga Soomaali ahaan ilhaan dad badan ay matashaa waa run muslim iyo gaal iyo kulli way matashaa waa run laakiin anaga hadaan nahay Soomaali ahaan aad ayay noo saameynaysaa oo waxa weeye mida u baahanahay marka qof kasta oo Soomaali ah oo awoodo inuu nagala soo qayb galo xafladaas soo dhawow haysdeen xataa aniga ma codeyn waa ka soo horjeeday iska ilow soo dhawow insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inay guusha noqoto mid ummadda midayso haddaad ka timid Somaliland haddaad ka timid Djibouti haddaad ka timid Kenya haddaad ka timid Kalinka Shanaad haddaad ka timid Somali weyn Puntland Hirshabelle Jubaland intaan ka tagoya Galmudug xogaa ayaanta rajada ma fiicna laakiin hal imaado marka kulligiin inay imaataan waa insha Allah ta'ala sababtoo waxa waaye imagine gabadha markay tomorrow hadduu ilaahay nafta u qoro oo ilaahay u sahlo markay tagto meeshaas ayadoo xijaabkeeda wadato oo ninkii caanka ahaa ay hor fariisato oo meel kasta laga arko qofka ajnabiga ah kuma dhahayo gabadhaanaytu waxa waaye reer qabiilkaas waaye ama gobolkaas ka soo jeeda kuma dhahayo wuxuu ku leeyahay gabar Soomaali ah aqalka cad ku jirto ama ninka hor fariisatay oo muslim ah ma fahanto Soomahan taas awgeed guushan qof kasta oo Soomaaliya iskale meel kasta degano may iyo maxaa tiri Somali Bantu Somali Banadiri Somali weyn war meel magac waxaas oo dhan ama calanka buluuga wado ama midka guduudka wado ama midka wax kasta ku qoran yihiin wado idaasir maareer guushan ummadda dhan iskale insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa tan inay noqoto mid ummadda dhan midayso inay noqoto mid sukaaya keento soo dhaweyso sababtoo layli waxa iska jiro siyaasadda aan ku sii fogaanay hadaan nahay Soomaali siyaasadda laba guriyo waxa arkaysa hal guriyo waxa arkaysa wadankan oo ninkina uu yahay Republican xaaskina ay tahay dimuqraadi inay saaso kale inaan gaarno waa rajeynayna insha Allah ta'ala sababtoo ma ahan siyaasadda lagu kala fogaado wala kala aragti duwanaan karaa wala kala fikir duwanaan karaa marka waxaan waxba ahayn inaan maaragtay dagaal la soo qaado oo wadamo loo burburiyo ama gobollo loo burburiyo ama madaxweyne loo caayo ama mas'uuliyiin kale oo gobollada matasha loo caayo waa laga fiican yahay sababtoo taas anaga dhan ay saameynaysaa ilmaheena ay saameynaysaa insha Allah ta'ala marka waxaan ka codsanayaa maamulada jiro iyo maamulka weyn inaan taageerno ummadeena isku keerno aan anaga dhan hal meel ka soo wada jeesano runaantii marka campaign-ka ku jirtid aad ogaanaysaa Soomaalimada waxa ay tahay iyo Republican-ka dadka wadankan aan joogno dhibaatooyinka ay nagu hayaan markaas aad dareemaysaa waxa aad tahay markaas aad dareemaysaa in Soomaalinimadu ay tahay wax weyn markaas aad dareemaysaa ninka ka yimid waqooyi iyo kan koonfur ka yimid inay isku mid yihiin ma garateen marka guushan idinka iska leh alxamdulillah u soo duceeyay ilhaan ducadiina loo baahan yahay codkiina loo baahan yahay dhameystirkiina loo baahan yahay noo imaada nagala qayb gala inta imaan karto waa yani aniga personally wallahi meesha dhaxdii Soomaali soo buuxiso okay aan ku ahay alxamdulillah waa fahanteen Soomaha marka ila gabarka ilhaan la soo hor u sheegay qof kasta matashaa oo degan dad inta soo boqolaal kun 700 kun gaaraya matashaa laakiin at the end of the day waa gabar muslimada waa gabar Soomaali ah waa gabar minority wadankan ku ah idinka idin matashaa aniga idinka idin la hadlayaa ina imaataan soo duceysaan codkiina bixisaan hadduu Ilaahay yiraahdo ka soo qayb gashaan waa muhiim waxaan rajeynayaa markana ku soo celcelinayaa in doorashadan ama election-kan Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noqdo mid ummadda dhan wada tuso
وكو كلا دوونان كرنا wax kasta laakiin waxana midayn karo mar kasta inay tan noqoto because maanta ilaahan qof kasta uu codeeyo lama dhihi karo reer hebel ka soo jeeda lama dhihi karo gobol hebel ka timid cid dhihi karta ma lahan magaca Soomaaliya oo dhan Soomaalida Kenya degto Soomaaliya Ethiopia degto Soomaalida degto waxa Djibouti Soomaalida degto gobolada waqooyi meel kasta وافن سماهن إلا يهوس جبوين كودادا باي بكل تدهن شل قاده وليبا الرادي ما فهمتي marka waxa idin rajeynaa walaalayaal ina imaataan ka soo qayb gashaan xafladan wax yaraan oo dhiman ducada soo dira election kan waa very important been ma ku sheegay sharciga yaraan oo ilaasinay oo isdhahay bal meeshaan ay timaartay meelahaas ay ku duldul waa la saga daba imaaday bahalkan ay baasaboorka loo soo socdaa ma fahmino marka imaada kiid elsan u codeeya xisbiga dimuqraadiga ah dadka idinka wataan idinka yaqaan u codeeya laakiin waxa halkan u soo galay in ay muhiim tahay in aan aragno tomorrow waqti badan soo keen dambeysay aniga Facebook soo gali jirnay ayaantaan waa iska nastay alxamdulillah because of jijiidki iyo wixii waa iska fahmi kartaa ya xabado badan way ku dhacayeen meeshii ma laga sii hadlaayo marka walaalayaal imaada nala soo qayb gala wixii kaftana waa iska kaftan at the end of the day waa jecelnahay dad walaala aan nahay dad muslim ahaan nahay gabdhaha Soomaaliyeedna believe me ban idima sheegay aniga indhahayga ku arkay gabdhahan caadi maaha wadankan Soomaaliya gabdhahan lagu wareejiyo 4 sano kaliya aan ku fiirino 4 years just 4 years arka wallahi billahi jijid badan ma dhici lahayn dhibaato badan ma dhici lahayn dantooda yaqaanaan kartibay leeyihiin waxbay qabsadaan horey u socdaan dhibka dhan anaga waaye subalkan maxaa waaye dhibka dhan ragga waaye ma fahmino 30 xoogaa sano waxa waa geen weynay dadka isku keeni weynay ummaddu waa isku keeni weynay marka bal afartooda sano hal tijaabiyo alxamdulillah waxaan u maleynayaa inay dadka isku keeni doonaan oo maartay guulna gaarsiin doonaan marka waxa idin rajeynayaa inaan is aragno habeen dambe xogaa waxaan la soo xiriirayaa insha Allah ta'ala wiil yar anoo ah aan meesha imaanaya dhalinyaro ah waa fahanteen Soomahan hadee wixii media waa joogaan marka meeshaas in idinka arko aniga aad iyo aad igu weyn hadda is leedahay shalay ilahana ka soo horjeeday iska ilow waxa soo dhamaadeen hore loo soconaya qofta waa tagtay ma fahmino tareenkan cusub soo raac waa soo raacin anaga gacmaha ay saysano hadee khayr ay rajeynaya I love you guys all and intaan ka badan waxa way dambiya u maleynaya hadalka badan waa laga fiican yahay guul khayr insha Allah ta'ala share ku sii qabto ma la jiray hal imaada meesha dadka xamar joogo dadka boosaaso joogo dadka Ismaaciil joogo dadka joogo Cadaado dadka joogo Bokool iyo Djibouti iyo maxaa ahay meesha aan jeclaa gobolka aan jeclaa maxay ahayd magaciisa magaaladeedii Lascaanood life soo gala daawada waxaan rajeynayaa anagoo happy ah inaan horumar gaarno gabdhaheena yar yar iyo wiilasheenaba run ahaantii waxay u tahay ilhaan Roomaro aniga Axmed ahaan wallahi been ma ku sheegay si u shaqeysaan arkay say hore ugu socotaan arkay aniga wiilkayga yarba waxay noo tahay Roomaro marka intaas kaliya awgeed imaada hadduu Ilaahay yiraahdo markay xagga tagtana haddii la isciin lahayd xataa hore oo sii wadanayna ma fahmino wadanka tageeda dawladdeena isku dhiibayna xaggan ka sii wadayna hawsha haddii Ilaahay yiraahdo dawladdeena hala taageero intaas yarta dawladnimada waa fiican tahay ayadana waxaan rajeynayaa inay ka shaqeyso dadka si soo dhaweyn lahayd oo ma aragtay ay يعني ما فينا إن سكو مارت ما حرص قراعه. At the end of the day وحاجة domestic محل ده هاي policies and international. إنه كلا في strategy جوده إنه سكو رجع صدق بعد وهر ما جارسينا يو. ماشي أنا تو حواي ضد واد دالين. بين مكوش ياش واد دالين. حتى رجع أو سياسيين تكجري. أيجي أبدالي. والله ويد دالين نفتر كود سلو عرسنا أيجي عرسنا ين ما أنطرن. مركو حرجينا أنا أسكو أمانو. oo aan hor u socono dawladana hala taageero maamul goboleedyada kuwa dhisan hala taageero kuwa wax ka dhiman yihiin hala sii dhameystiro insha Allah ta'ala ilaahay maaragtay dad daacada oo urkooda isku fiyo ilaahay naga dhigo oo isjecel isku jecelnahay waa ogtihiin it's no doubt about that waa isjecelnahay laakiin xogaa yar oo siyaasadda ah ayadana waxa waaye waa maturity levelkii ay wali dhiman ma gaarin you know dadka waxay ku qaadataa 200 sano inay dhisaan system jiro ما فهمنا وليبا فدراليزم أو هذا إلهي أوجي حال كيسة مركز تاسمو كسي ديرانا أيو وحين الله يكليه أنت يرتع هاي سنة على سير ريحو خير أسكو ابن هاي بريتو إيش ضد اللايف كوجرا كوسوعة والله سما دبكلي هو كل لايف يقولوا جرا يسوعة ما قتل تلفونه هيستان anyways بريتو أسرقنا
noo imaada wasla baashaalayna adula yiraahdo fanaaniintii waa wacay dijiyaashii waa wacay buraanburadii diyaar waaye diraca soo xirta guntinada meeshaas aan qasna tomorrow fiican qasitaan wanaagsan laakiin ya khayr aad rajeynaya I love you guys ilaahay khayr aan siiyo noo soo duceeya siyaasadda wax sahlan ma ahan inta ku jirtana u duceeya oo muslimiinta ah oo maaragtay oo wadankan ku jirto hodan iyo maxamuud nuur iyo siyaad cali iyo dulaaye ku roon yahay cabdi warsame iyo AK iyo u duceeya baashan wax sahlan ma ahan inta u soo socotana ina karti leedahay ogow baashan igu soo degdeg ma ahan marka insha Allah britaas arkayna haduu la yiraahdo haddaan noolahay waa intaas soo duceeya khayr ay rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت ولد عيسنا يا dadka markay soo galaan Facebook live marwana ugu dambeysay meesha taabanay xataa inaan taabtay ma aqaan atig inaan ku jira umaleynaya insha Allah taala sugiya waxyar aan kala habeey isuga waxyar اوكي هدا soo galay baalka okay السلام عليكم soo dhawaada maanta waxa waaye waa la duceynayaa ما شاء الله والله مرة igu dambeysay live aan soo galo maanta waxyaabo badan idin sheegaynaa ku saabsan campaign-ka say wax u socdaan insha Allah taala meesha wax marayaan mar dhawaa bilaabanayna programka ee dadka live soo galo moogta heesa intii la shido heesa ima haysti ani waxa shida ma haysti but anyway السلام عليكم ورا أمر إنا شقيسه محاك وداعي لا إله إلا الله أنا وصور دونت anyways سود هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله بنا جامعير سود هو كان صان له اسك قريبا اوكي سود هذا وعليكم السلام كل جين أحمد حرسي ومرة يمكن دنبيسي فيسبوك عيانا كم مقنع waxaan uga maqnaana waxay iska ahayd maartay dana gaar ah oo aniga family ahaan waxaan rabay inaan ka tago bahalka siyaasadina waa xogaa lagu wareeray Soomaaliya marka inaan break ka qaato alxamdulillah dhamaantiin waa salaamantihiin mar kale assalaamu calaykum inta gadaal naga soo gaartay soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego election kan hadda ilhaan ay ku jirto waa la socotaan saa umaleynaa kulligeen muxuu taagan yahay iyo muxuu nagu soo kordhinayaa iyo dawladda ku roon yahay sababaha ama ku qasbay gabadhaasayto inay u cararto oo magaca Soomaaliyeed meel kor ay geyso wax sahlan ma ahan insha Allah taala saa ogtihiin بريتو وثلاثة أقدم بيسو إلكشن كدولاي رهدو وحرجينا إن شاء الله تعالى وحرجينا يا أنت نقع عضيسي أنت نوع عضيسي أنت أنا نوع عضين كل جين إنك سوق بقشان تومورو بريتو أو ثلاثة أدرس كإلهام في كونغرس هوس وكقرنية هاي ماشي مارتي إلكشن كل جدا ونايو إنا إماتان صابتو سياسة دولة كسوه جيسن كرا معنا ملاهن لكن وحا مهم إن تاريخ دان قف كستا أو صومالي أنا صومالي أهان إلهان ضد بدني متشاء وارون مسلم يقال يكل وين متشاء وارون لكن أنا قدرنا هاي صومالي أهان أي نوع مينيسا أو بحوي إن ميدا أوباهنا هاي مركب قف كستا أو صومالي أو أودو إنه نجلس وقيب كلا حفلة داس صدقوا هاي سدهن حتى أنا جمع عضين وكسوه رجيري سكيلو صدقوا إن شاء الله تعالى وحرجينا